iyadoo 111 ruux cudurka shuunbiyoodka ay jiifaan isbitaalka magaalada Cadaado ayaa maanta shirkadda isgaarsiinta Hormuud deeq dawo ah waxay gaarsiisay isbitaalka dhexe ee Cadaado. maamulka shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybtooda Cadaado ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan baaqi ka soo yeeray maamulka isbitaalka ee ku aadanaa baahida dawo la'aan ee ka jirta isbitaalka. Maxamed Axmed Cabdille maamulaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybtooda magaalada Cadaado oo ku wareejiyay dawada maamulka isbitaalka ayaa faahfaahin ka bixiyay nooca ay tahay dawada ay ku wareejinayaan isbitaalka. ayaan waxaan hadii Ilaahay idmahayo ugu soo deeqnay dadka shubanbiyoodku ku haleelay deegaanka Cadaado 900 oo mir oo faleenbaha cusbada ah ayaa shirkaddu ugu soo deeqday aniguna wakiilan uga ahay waxaan guddoonsiinayaa hadii Ilaahay idmahayo cusbitaalka guud ee degmada Cadaado. Dr. Maxamed Cumar Yuusuf agaasimaha isbitaalka Cadaado ayaa tilmaamay in xilligan ay u baahan yihiin daaweyn intaan ka badan si loola tacaalo bukaanada jiifa isbitaalka. runtii baahi zaid ah ayaa jirtay hadda isbitaalka waxa jiifta 111 qof oo cudurkaas shubanbiyoodka la ildaran dabcan dad badan oo kalena waxaan ugu maqaalaa inay soo socdaan dad badan cudurkii wali la soo dhacayaan runtii waxa dareemi kartaa baahi badan in loo qabo marka faleebooyinka iyo waxyaalaha kale oo dadka fuuqooda lagu soo celsho baahidu way taalaa intaana ma dhamayn karto ma cover garayn karto laakiin in badan bay ka hagaajinaysaa. wasiirka gargaarka bini'aadanimada iyo daryeelka naafada dowlad goboleedka Galmudug Shire Xirsi Maxamuud oo goobjoog ka ah halka dawada lagu wareejinayo ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka inay ka soo muuqdaan kaalinkooda. meeshan sida aad ogtihiin ama dhakhtarku hadda sheegay 112 qof ayaa weli baaqi ku ah oo taala dadkana weli waa la soo wadaa oo waa bilow hadda waxaani waxa soo socda bukaankii weli soo socda marka waxaan leeyahay waan baaq u dirayaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa local NGO-ga iyo ummadda Soomaaliyeed oo muxsiniinta oo Ilaahay wax siiyay inay si degdega gargaarka bini'aadanimada maaragtay ay u baahan yihiin Galmudug maanta ay qayb ka qaataan. Maxamed Maxamuud Awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.